kulanti wanaagsan daawade ku soo dhawow Abraham Show. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa inta wadan ay haysata hubka nuclear-ka iyo inta xabee guud ahaan adduunka taala. Haddaba haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay aad aragto channelkan, fadlan subscribe dhe. Sidoo kale taawo gambaleelka ku muuqda si aad mar walba u noqoto qofka ugu horeeya ee hela macluumaadkan halkan ku baahino. Xilligan oo ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran, sheekadan waxaad wax badan uga fahmi kartaa arrimaha hubka nuclear-ka. Hubkan waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka wax gumaaday qasaaraha ugu weyn u geysan kara adduunka. Qaraxyadiisu aad ay u awood badan yihiin, hal bambo oo nuclear ahna waxay baabi'in kartaa magaalo oo dhan. Qunbuladaha nuclear-ka waxay aad uga waxyeelo badan yihiin, xitaa bambada ugu weyn adduunka ee aan nuclear-ka ahayn. Waxaa jira wadamo badan oo ay ka mid tahay Iran, kuwaas oo aan loo ogolayn inay yeeshaan awoodda nuclear-ka, halka kuwa kalena ay haystaan. Waxaa laga yaabaa inaad su'aalo dhowr ah iska weydiiso arrimaha nuclear-ka, laakiin hawlwelin waxaan isku soo toosinay jawaabaha aad uga baahan tahay inta badan su'aalahaasi. Aynu ku horeynay nuclear muxuu yahay? Waa qaraxyo si xad dhaaf ah u awood badan. Waxaa laga yaabaa inaad xusuusatid erayada atoms iyo isotopes haddii aad soo dhigatay maadada sayniska, kuwaas ayaa qayb ka ah hanaanka loo maro samaynta bambooyinka nuclear-ka. Bambooyinku waxay tamartooda ka helaan atomisyada oo kala fida ama isu imaado oo si wadajir ah cuf u sameeya. Taasi waa sababta mararka qaar bambooyinka nuclear-ka loogu yeero atomic bomb. Hubka nuclear-ku wuxuu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shucaaca, kaasoo ah mid sababi kara waxyeelo badan. Sidaas daraaddeedna saameyntooda waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qarax dhaca kadib. Hase ahaatee, 2 jeer oo keliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida hubka nuclear-ka. Waxaan lagu dhiftay waddanka Japan sanadkii 1945, xilligaas uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Markaas waxay bambooyinkan sababeen masiibo weyn iyo khasaare nafeed oo laga xishoodo in tiradiisa la sheego. Shucaacii ka dhashay bambadii lagu dhiftay magaalada Hiroshima wuxuu socday dhowr bilood, wuxuuna dilay dad lagu qiyaasay 80,000 oo ruux. Bambadii kale ee lagu dhiftay magaalada Nagasaki waxay iyaduna dishay in ka badan 70,000 oo qof. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay nuclear-ka weli looma adeegsanin dagaal kale. 9 wadan ayaa hadda haysata hubka nuclear-ka, waxayna kala yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha, India, Pakistan, Israa'iil iyo Kuuriyada Waqooyi. Haddaba su'aashaas weydiinta mudan waxa ay tahay yaa samaysan kara hubka nuclear-ka? Su'aashaasna waxaa laga yaabaa daawade in la fahantaada aad isweydiinaysid. Markii sida guud loo eego, jawaabtu waa inuu samaysan karo qof kastoo aqoon saynis leh, farsamada yaqaana, qalabkana heli kara. Laakiin marka laga hadlayo in wadamada loo ogol yahay samaysashada hubka nuclear-ka iyo in kale, jawaabta su'aashaas waxay qaadanaysaa sheeko dheer. Waxaa jira waxa loogu yeero is-afgaradka xakameynta hubka nuclear-ka oo afka qalaad loogu soo gaabiyo NPT, kaasoo ah heshiis looga gon leeyahay in looga hortago faafitaanka hubka nuclear-ka iyo in laga qaado wadamada aan loo ogolayn. Tan iyo sanadkii 1970, 190 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Shiinaha ayaa saxiixay heshiiska ka hortagga hubka nuclear-ka. 5 wadan waxaa loogu yeeraa dowladaha ku hubeysan nuclear-ka, waana loo ogol yahay inay haystaan hubkaas, sababtoo ah waxay samaysteen oo ay tijaabiyeen ka hor inta aan heshiiskan NPT la dhaqangelinin 1 bishii January ee sanadkii 1967. Xitaa iyadoo dalalkan ay haystaan nuclear-ka, heshiiskan ay qayb ay ka yihiin, iyagoo qudhooda waxaa laga rabaa inay yareeyaan xaddigiisa, mana loo ogola inay weligood iska haystaan. Israa'iil oo weligeed aan qiranin ama beeninin inay haysato nuclear-ka, India iyo Pakistan midna qayb kama ah heshiiskaas, mana aysan saxiixin. Kuuriyada Waqooyi waxay heshiiskaas ka baxday sanadkii 2003. Haddaba daawade, su'aal kale ayaa jirta oo la fahantaada aad isweydiinaysid oo ah xagee Iran kaga jirta? Iran waxay barnaamijkeeda nuclear-ka bilowday sanadkii 1950-yadii. Markastana waxay ku adkeysanaysay in tamarta nuclear-ka ay samaysanayso ay tahay mid nabada. laakiin waxaa jiray shaki laga qabay inay si qarsoodi ah u samaysanayso hubka nuclear-ka
arrintaasina waxay keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay Mareykanka iyo midowda Yurub ay cunaqabateyno ku soo rogaan sanadkii 2010. Tani waxay keentay sanadkii 2015 ay heshiis galaan Iiraan iyo wadamada kale ee qubadaha waaweyn, kaasoo ay Iiraan ku saxiixday heshiis dhigayay in ay baabi'iso bacriminta nuclear-ka si cunaqabateynta looga qaado. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaas cagta ku dhiftay bishii May ee sanadkii 2018. Haddana waxa ay dalalka reer Yurub Iiraan loolan ku gelinayaan inaysan u hoggaansamin qodobada heshiiskaasi. Sidoo kale markii ay sanadkan cirka isku shareereen xiisadaha u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in Iiraan aan loo ogolaan doonin in ay yeelato hubka nuclear-ka inta isaga uu madaxweyne yahay. Kadib markii ay caro ka dhalatay dilkii uu Mareykanka magaalada Baghdad ee xarunta dalka Ciraaq ugu geystay generaalkii reer Iiraan ee Qaasim Suleymani, Iiraan waxay sheegtay inaysan u hoggaansami doonin xadidaadii qaybta ka ahayd heshiiskaasi. Sida kor ku xusan waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka nuclear-ka laga baabi'iyo guud ahaan dunida. Run ahaantii tirada bambooyinka nuclear-ka ee dunida taalay waxay hoos uga dhacday 70,000 oo ay ahaayeen sanadkii 1986, maantana waa 14,000 oo bambo. Mareykanka, Ingiriiska iyo Ruushka waxay dhammaantood ay hoos u sii dhigayeen xaddiga ay hubkaas ka haystaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in Shiinaha, Pakistan, Hindiya iyo Kuuriyada Waqooyi ay samaysanayeen bambooyin dheeraad ah sida uu sheegay ururka saynisyahanada ee dalka Mareykanka. Bishii Juulaay ee sanadkii 2017 waxay u muuqatay in dunida ay hal tallaabo u qaaday sidii looga xoroobi lahaa hubka nuclear-ka kadib markii ay in ka badan 100 wadan saxiixeen qarar ka soo baxay qaramada midoobay oo dhigayay in si wadajir ah loo baabi'iyo hubkaas loona mamnuuco. Laakiin dalalka ku hubeysan nuclear-ka ee kala Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka ayaa horjoogsaday hirgelinta qaraarkaasi. Ingiriiska iyo Mareykanka waxay sheegeen in qaraarkaas uusan damaanad qaadi karin amniga dunida, maadaama nuclear-koodu dhexaad u ahaa ilaalinta nabadgelyada caalamka muddo ka badan 70 sano. Halka dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ay yareynayaan bambooyinka ku jira baqaaradooda hubka nuclear-ka, haddana khubaro ayaa sheegaya inay sii xoojinayaan awoodda bambooyinka ay leeyihiin. Ingiriiska ayaa sii casriyeynaya nidaamka hubka nuclear-ka, Mareykankana waxaa laga yaabaa inuu lacag dhan $1 trilyan u adeegsado sidii uu kordhin lahaa awoodda nuclear-kiisa ilaa sanadka 2040. Kuuriyada Waqooyina waxay sii wadaa tijaabinta iyo horumarinta barnaamijkeeda nuclear-ka iyadoo gantaalo riday xilli aad u dhow oo ah bishii Oktoobar sanadkii dhammaaday ee 2019. Sidaas awgeed, inkastoo dunida ay ku sii yaraanayaan tirada bambooyinka nuclear-ka marka loo eego 30 sano ka hor, uma muuqato in mar dhow laga xoroobi doono hubkaas ama si buuxda loo baabi'in doono. Daawada waxaan filayaa in macluumaad badan aad ka faa'iiday inta wadan ee hubka nuclear-ka haysata iyo inta xabbe ee xilligan dunida taala. Inta muuqaalkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.